بسم الله الرحمن الرحيم داود يالكوشو دوادا يوتيوب كحقيقسن ميديا فضلا سبسكرايب سار لايك إشارتنا كيلو من شدو كلا جنبليل كفروشدي سي ووركي ugu dambeeyay ee YouTube keen oo idin soo gaaro madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa muddo toddobaad ku sugan magaalada Muqdisho waxaana dhowr jeer intii uu ku sugnaa la kulmay madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kulamadaas ayaa waxa ka soo baxaya warar iskhilaafsan oo la xiriira qodobada ay ka wada hadleen mas'uuliyiinta سعيد عبد بودل oo hore u soo noqday afayeenkii laamaha amniga Jubbaland ayaa sheegay in waxyaabaha uu isleeyahay in ilaa iyo hadda la isku mari laayahay ay kamid tahay nooca doorashada la doonaya in sanadkan ka dhacdo Jubbaland iyo warar la helaya oo sheegaya suurtagalnimada in dawladda federaalka caawisay in mar kale Axmed Madoobe uu soo laabto Masar Budul ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan in dawladda federaalka ku taageerto Axmed Madoobe in mar kale Masar Budul ayaa sheegay inaysan soo dhaweynin in dawladda federaalka ay ku taageerto Axmed Madoobe inuu mar kale soo noqdo isla markaana hadii ay yihiin daneeyayaasha arrimaha Jubbaland doonayaan inay bisha Agosto dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ila xog ogaal ayaa inoo sheegay in Axmed Madoobe maalmaha soo socdo dib ugu laabanayo magaalada Kismaayo iyadoo aan la ogeyn natiijada uu la laaban doono dawladda federaalka Soomaaliya uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa xiriir wanaagsan kala dhaxeeyay badi maamul goboleedyada dalka oo khilaaf soo noqday uu ragaadiyay fadlan subscribe sar channel kan like iyo share tana kiilo sidoo kale gambaleelka furo waana mahadsantiin